asxaabta sharafta leh ku soo dhawaada channelka Rijaalul Janna fadlan subscribe saar channelka Rijaalul Janna si uu ku soo gaaro muuqaaladan soo geliyo gambaleelkana taawo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya waxaan idin wadaa qiso yar wiilkani wuxuu ahaa waardiye maamulaha shaqada ma ixtiraami jirin wiilka dadka oo dhan ayuu u adeegi jiray oo waxay rabeen u qaban jiray laakiin maamulaha shaqadu ma ixtiraami jirin hal maalin ka hor maalintii ciida gabar ka mid ah shaqaalaha ayaa weydiisay soo ehelkaaga lama farxi doontid maalintii ciida wuxuu ku yiri maya ma awoodi karo shaqo badan ayaa i sugaysa wiilkii wuxuu arkayay shaqaalaha oo dhan iyagoo sii baxaya kuna faraxsan inay farxadda ciid la qaataan ehelkooda meel ayuu fariistay wuxuu ka fakarayay hooyadiis iyo aabihiis isagoo murugaysan ayuu haddana shaqadiisii si wanaagsan u gudanayay isagoo shaqada ku jira ayuu moobilkiisu soo dhacay waa hooyadiis waxayna ku tiri wiilkaygiyow soo noomi imaanaysid si aad farxadda ciida noola qaadato wuxuu rabay inuu hooyadiisa u jawaabo laakiin si lama filaan ah waxaa uga soo horbaxay ninkii maamulaha shaqadu ahaa wuxuuna ku yidhi adigu shaqadaada ma gudatid mar walbana moobeel ayaad isaga hadashaa wiilkii wuu awoodi waayay inuu u jawaabo hooyadiis si lama filaan ah ayuu maamulihii shaqadu wuxuu u soo taagay wiilkii kiish weyn wuxuuna ku yidhi waatan hadiyadaadii ciidda adiga iyo qoyskiinaba oo dharkan iska bedel qoyskaagana u tag oo la soo ciid wiilkii aad ayuu u farxay maalintii labaad wuxuu aaday gurigoodii wuxuu u yeeray aabihii iyo hooyadii indhihiisana ilin ayaa ka muuqatay ma taqaaniin sababta uu isu bedelay maamulaha shaqada maamulaha mar isagoo fiirinaya kaamirooyinka ayuu arkay wiilka oo shaqadiisa si daacadnimo u gudanaya iyo asigoo saacidaya shaqaalaha kale mar walba wuu ku qeylin jiray hal marna ma dhihin waad mahadsan tahay
mar walba si daacadnimo u shaqay, dadkana u kaalmay. Ilaahayna wax walba wuu kuu saqirayaa, wuxuu kugu bedeli doonaa wax ka khayr badan.